Dr. Maxamed Cismaan Maxamed oo ah dhakhtar Soomaaliyeed wiil dhalinyaro ah oo loona yaqaan magaciisa Dr. Nasiim. Dr. Nasiim waxa uu ka mid yahay shaqaalaha dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka. waxa kale oo uu ku jiraa oo ka mid yahay guddiga COVID-19 Task Force. Dr. Nasiim waxa uu ahaa dhakhtarkii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee COVID-19 ama coronavirus uu ku dhaco. waxaan rabnaa maanta in aan caawa inaan ka wareysano xaaladda uu ku sugan yahay sida aad ka arki kartaan. alxamdulilah rabbil caalamiin, hadda xaaladeyda aaday u wanaagsan tahay. markii loo fiiriyo maalmihii hore xaaladeyda xoogaa iska yara xanuunsanaa, ayadana aysan aad u darnayn, maadaama aan ahay qof neef qabo. xanuunkana dadka u nugul ay ku jiraan dadka xanuunada chroniga loo yaqaano qaba ama xanuunada raaga sida diabetiga ama sokorta, hypertensionka, asmatiga, dadka oo neefta qabo kale, maadaama aan kamid ahaa. laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin, hadda marxaladii hore aadaa usoo dhaafay. nin dhalinyaro tahay, asxaab badan. markii asxaabtaadu ay ogaatay ehelka dhaqankii iyo qaabkii aa u wada macaamili jirteen maxaa iska bedelay? wallaahi asxaabteyda horta aaday u mahadsan yihiin, aaday ii garab istaageen, aadayna ii support gareeyeen morally iyo dhinac kastaba. communicationkeena marna muusan go-in. waxaa jira social media, telefonaa jira, kaliya waxaa istaagtay booqashadii inay soo booqdaan in aniga u tago. laakiin waxaa jira social media ama telefonaa jiro, social media, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, wax alla waxay dhalinyaradii isticmaalayeen oo dhan. in laiskula communicate gareeyo. gruubyadii aan ku jiro WhatsAppka la igama saarin. waxaa jira group aan sameysanay tiimkeena oo intii asxaabta ahayd oo laga helay xanuunka, waxaa u bixinay friends with COVID-19. halkaasa waxyaabo aan ku sheekeysanaa, waxyaabo isweydaarsanaa. asxaabteeda marnaba maysan iga go-in, keliya waxaa istaagay inay soo booqdaan ama aniga aan u tago banaanka aan aado booqdo. laakiin waxa iwehelinayaba inta ugu badan ayagay ahayeen oo telefoonkayga 24 saac isoo wacayay, xaaladeeda i wareysanayay, qaarkood qoraalo iisoo dirayay oo runtii dhiiragelin ah, oo run ahaantii aad ugu farxayay, ducooyin la iisoo dirayay. guud ahaan waxaan rabaa horta inaan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan. wallahi dad fara badan oo aan garanayna isoo wacayay, oo iisoo duceynayay. qaar social media igala soo hadlayeen, qaar telefonadeeda soo dirayeen. Soomaalidu waxay ku maamahdaa nin buka boqol u talisay. ma garanaysaa soo? marka maadaama arrintan dadka asxaabtaada, reerkaaga, qoyska, xeelada kulli ay markay ogaadeen, maxaa advices lagu siiyey oo haddaa saan samaysid waxaa weeye waa ku biskoonaysaa, haddaa kan samaysid waa ku biskoonaysaa? waan ka xumahay, waxaa ii shuban coffee laakiin kuma siin karo. okay. wixii igu waxyaaba la yaab, Soomaalida waxay tirahdaa waa sidaa sheegtay, qof buko boqol u talisa inay iyada umaynaa maamada haddaan khadanayn. waxyaabihii igu darnaa waxay ahayd anigoo dhakhtar ah. baa maalin, waxaan u malaynayaa maalmihii la iga sheegay xanuunka dhowr maalin kadib, ayaa maamo oo aan isnaqaano oo qaraabo aan nahay ayaa inta maalin isoo wacday, waxay igu tiri ii waran ma fiican tahay la yiri, waa xanuunsatay yaa lagu yiri, xanuunkii xumaaya kugu dhacay, waxaan ku hayaaya tiri daawadiisa oo dal iyo dibad
lasoo tijaabiyey qof kaa waaya aragsanna oo kuu sheegayo, waxaan ku iri waa yahay maxaa waaye daawada. marka waxay igu tiri maamadii marka hore maxaa qaadataa oo daawo ah. waxaan ku iri daawooyin oo dhakhtarkayga neefta ii qoray, daawadeedii hore aan qaadan jiray iyo waxyaabo yaryaro vitamins ah iyo cabitaan badan iyo malab iyo waxaasaan isticmaalaya aan ku iri. markaasi waxay igu tiri waxaas adoowadeysid waxaan ku hayaaya tiri dawo haddii aad isticmaasho aad hore ka ordaysid. waxaan ku iri haya maama maxay tahay daawada. waxay tiri waxay dhahday waxaad samaysaa shukumaan qoyan soo qaado. markaa soo qaadato shukumaanka qoyan, qof guriga joogaha kuu yimaado, shukumaanka dusha iska saar, suntan oo beef bafta u yaqaanaan soomaalida oo kaneecadoo kale, kaneecada lagu dilo iyo waxa insectska lagu dilo, sunti qaado ha lagugu buufiyo adigoo dhan, adigoo shukumaanka hoos lagaga buufinayo, xoogaa ha lagugu daboolo adoo gudaha ku jira 5 daqiiqo sidaas ku hay. waxaa igu ballanay tiri in marka shukumaanka saas lagaaga feedo inaad qufici doontid aad hore ka cararaysid. waan qoslay, waxaan ku iri maamo horta waa mahadsan tahay. midda labaad waxaan ku iri sunta oo kaneecada loogu talagalay ma ahan mid loogu talagalay bini aadanka inay isticmaalaan. marka waxaan ku iri xanuunkan dawo ma lahan, laakiin wuxuu leeyahay qofka inuu difaaca jirkiisa kor u qaado, haddii qandho qabato qandhada inuu iska jibiyo, luqad ayada ee markaas ay fahmi karto aan kula hadlay, inuu qofka quraan isku akhriyo. marka waxay igu tiri wiilashiinaan yaryar waxaad aaminsan tihiin waxyaabahan kiimikada ah, laakiin sida saxda ah waxa weeye waxa dadka idinka waaweyn idin sheegayaan waa inaad qaadataan. waxaan ku iri waayahay hadda maama, waxaan ku iri ma waxaan sameeyaa ma sunta kaneecada isku buufiyaa. midda kale waxaan ku iri anigaaba neef qaba oo normally anigooba sideyda u caafimaad qabo oo corona aan qabin, sunta kaneecada ay dhibtaa. haddana ma anigiiyo coronadii qabay oo neefta isii dhibaysaa waxaan sii isticmaalaa waxa la yiraahdo sunta kaneecada. run ahaantii waxyaabo oo aad u yaab badan like waxyaabo la yaab badan oo kale. waxaa kaloo igu darneyd waxaa igu darneyd maalinna waxaa dhacday qof baa isoo wacay. qofka markuu isoo wacay wuxuu igu yiri intuusan isoo wicin wuxuu igu yiri niyo ma ku soo wici karaa. waxaan ku yiri haa waa isoo wici kartaa, maxaa jiraan iska weydiiyey. markaasuu dhahay niyo waxaan rabay inaan video call kaa soo waco marka hore oo aan ku arko, weligii ma arag uu yiri qof oo corona qaba, marka inaan ku arkaan rabay, marka saa u ekaatay macnaha. waxaan ku yiri niyo horta ninkii aad taqaanay oo nasiibanahay geese igama soo bixin weli, sideedii aan ahay, waxa iska kii bedelay haba yaraatee ma jiraan. marka dee haddaa ku qanceysay inaad video call iga soo wacdana ahlan wasahlan. wuxuu ku adkaystay inuu video call iga soo waco, waan ka aqbalay. video call xoogaan kala sheekaystay, markaasu wuxuu yiri niyo caadi baaba tahay waxba iskama kaa bedelinay. markaasa waxaan ku yiri niyo xanuunkan waa xanuun iska caadi ah, qof kastoo bini aadana ku dhici karo. maxaan ku iraahdaa uusan ahayn xanuun raago, qofku ilaahay subxaana watacaala oo caafiyana uu ka bogsoonayo, mortality rateka ama dhimashadiisana inay aad u yar tahay. dadka riski groupka uu ku dhacana waxaan ku iri dadka sokorta qabo, dhiigkarka qabo, neefta qaba, dadkaas u badan yahay. waana xanuun qofka uu ka caafimaadi karo, ilaahay subxaana watacaala uu ka caafimaadi karo. ma ahanaan ku iri qof xanuun oo qofka inta noloshiisa ka dhiman haynayso. صح waana qofka wuxuu ka bogsoon karo kaliya laga rabo qofka inuu taxadaro marba haddii asaga xanuunka uu ku dhacay, dadka kale inuusan u gudbinin, dadkii meesha uu ku noolaa dadkii inuusan u gudbinin, inuu iska ilaaliyo sidii uu ayagana u badbaadin lahaa.
haddii guriga uu ku noolaa ay jiraan ama ay joogaan dad waayeela ama dad da ah oo kale ama dad xanuunadan oo chronic diseaseka qaba inuu ayagii siduu u badbaadin lahaa iyo guud ahaanba bulshadana siduu asagana uu u badbaadin lahaa inuu qofku gurigiisa iska joogo fatro yaroo waqti yaroo iska kooban weeye ilaa 14 beri 2 tasti kale laga qaadayo then hadduu negative noqdana uu bulshadiisii iyo kusoo dhex noqonayo waxaan ku yidhi ma ahan dadka qofka in uu wejigiisa uu iska bedelayo geese inuu yeelanayo inuu qof kale u ekaanayo hadduu buurnaa inuu caato noqonayo haddii uu caato ahaa inuu cayilayo in timaha ay ka bidayaan all those things macnaa ma isbedelayaan aan ku yidhi qofka sidiisuu ahaanaya keliya inuu qaato waxyaabo jirkiisa isaga difaaca jirkiisa soo celinayo sida inuu biyo badan cabo inuu vitamins qaato in waxaan ku yidhi marka ma ahan qofka inuu isbedelayo finally isagoo qanacsan iga tegay laakiin markuu isoo wacay aad u yaabanaa wuxuu ahaa qofku wuxuu islaanay weligaa maadan arkin qof corona qaba bal ninkii aad taqaanay sidii uu isku bedelay wejigiisa marka uu sharaxay si fiican u fahmay su-aasha marka aan rabay inaan ku weydiiyo hadda inta hadda kasoo hadlaysay ayay la xiriirtaa waxaa jira xoogaa Soomaalidu wax stigma camal ama takoor ay sameynayaan oo qabaan qofka haddii lagu sheego in uu cudur ku dhacay yani aad u qaab daran oo dadku way qarsanayaan Soomaalida dhaqanaan intooda badan marka maadaama aad takhtar tahay maadaama uu COVID-19 uu yani laga helay sidee ayaad is leedahay stigmadan COVID-19 oo buufiska dadkeen uu ka qabo sidee looga baabi'in karaa fikrad ahaan waxa loo yaqaano buufiska ama takoorka ama stigmada waxay u yaqaanaan bulshadeena wuu jiraa waana wax u baahan waxa kaliya looga hortagi karana waxay tahay in wacyigelin la sameeyo inay hadlaan marka ugu hore horta wacyigelin guud ahaan wacyigelinta hadda ee bahda caafimaadka ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka wacyigelinta ay wadaan dhakhaatiirta wacyigelinta ay wadaan guud ahaan wacyigelinta la wado in kor loo qaado midda koowaad midda labaad horta intaan stigmada la gaarin dadka inay horta marka hore ay qaataan talooyinka la siinayo inay nadaafada ku dadaalaan gacmaha ay iska dhaqaan ilaa iyo 20 second oo kale inay ku dadaalaan waxay u yaqaanaan maxaa laga dhahaa waxay u yaqaanaan social distancing ama dadka inay aad u kala fogaadaan oo kale in qofkii talooyinkaas oo kale in aad loo qaato maadaama hadda xanuunkan uusan talaal lahayn uusan lahayn daawo oo la dhihi karo qofka markuu ku dhaco specific treatment oo la siin karo oo la dhihi karo qofka daawadaas markii la siiyo hore ka fiicnanaya oo hadda adduunkii uu ku wada mashquulsan yahay daawadiisii iyo talaalkiisii iyo xanuun uu hadda adduunka wada baranayo uu yahay oo hadda cilmi baaristii iyo wixii dhan ay wada socdaan marka midda koowaad waxaan dhihi lahaa hor talooyinka in la qaato shacabkana inay isdejiyaan oo cabsida badan ay iska daayaan xanuunkan sidan hore u sheegay cid kastuu ku dhici karaa waa xanuun laga fiicnaan karo xanuun raagaya ma ahno qofka intuu noloshiisa nool yahay uu la noolaanayo waa keliya bas precautionska in la qaato qofka hadduu ku dhaco inuu dadka kala badbaadiyo asaga uu isolate gareeyo xaruma haddii uu gurigiisa isku isolate gareyn karo gurigiisa inuu isku isolate gareeyo haddii xaaladiisa ay darnaato waxaa jirta xarun ay dowladda wasaaradda caafimaadka ay ugu tala gashay oo qalabkii wada yaallo oo sariiro leh oo yaallo oxygeno mechanical ventilationskii ama ventilationka la isticmaalayo uu yaallo in halkaas qofkii la geeyo waxaa jiro 449 telephone oo hotline ah oo 24 hours shaqeeyo dad howlwadeena caafimaadada ay fadhiyaan
oo markasta howlwadeennadaas caafimaadka ay diyaar u yihiin shacabka soo wacaya inay ka jawaabaan, inay wacyigelin siiyaan, wixii markaas xanuunsanna in triage loo sameeyo markii lasoo waco dadkii in taleefanada ama xaaladaha in la aruuriyo, isla markaasna loo sii gudbiyo dhakhaatiir kale oo sii kala soocayo, markaasna wixii gurmad degdega u baahan ambalaasi in loo diro tiimam dhakhaatiira oo loo tababaray inay jiraan, tiimamkaas inay dadka kasoo qaadayaan oo keenayaan meelihii dadka lagu daaweynayay. haddaan u imaado arrinta istigmada haddii waxay keeni kartaa in cases fara badan ama dad fara badan oo calaamadihii isku arkayo in ayagoo ka baqayo in la faquuqo ama la takooro ama dadkii ay ka kala cararaan in ay imaan waayaan meeshii baaritaankii loogu sameyn lahaa, daryeelka caafimaad loogu sameyn lahaa, qofkii hadhow laga yaabo inuu u dhinto complication ama neefqabaad ayadoon la ogeyn asagoo xanuunka faafiyey. Marka waxaan dhihi lahaa istigmada waa wax oo keeni karta in xanuunkii uu sii faafo, sababtoo ah qofkii xanuunka wuu qarsanayaa, markuu qarsado si aan loo faquuqin wuu iska soconayaa, bulshaduu dhex galayaa, ciduu doonu kusii faafinaya, wuu sii gudbinayaa. Haddii asagii xaaladiisa ay xumaatana waxaa laga yaabaa inuu guriga iska yimaado, gurigiisa uu ku dhinto ayadoon la ogeyn qofkii marka wuxuu u dhintay. Marka waxaan aad iyo aad aan uga dardaarmayaa in la ilaaliyo in dadka xanuunka uu ku dhacayo in istigmada ama faquuqa laga daayo ama laga joojiyo, sababtoo ah Soomaalida waa dad oral society iska ah. Oral society-gana waxaa laleeyahay reer hebel iyo guri hebel ayuu qof joogaa wuxuu ku dhacay COVID-19, soo xaafadii dhan waxaa laga yaabaa gurigii inuu noqdo guri calaamaysan. Waxaa laga yaabaa xataa in gurigii dhanba dadkii gurigii ku noolaa in shock uu ku dhaco, oo hadhow xataa qofkii marka uu ka fiicnaado in loo bixiyo coronada hebel corona ama wiilkii coronada ku dhacayay ciddooda oo kale, wax noocaas oo kale ah. Dr. Nasiim dhalinyara oo aad bashaash u ah oo niyad fiican oo haddana ummadda Soomaaliyeed had iyo goor u adeegaya ayaa tahay. adiga iyo takhaatiirta kula midka ah, nurseska, kalkaaliyayaasha Soomaalida, rag iyo dumar, takhaatiirta kulligood Soomaali haddaan nahay waa idin mahadnaqaynaa. khayr Allah idin siiyo dadaalka aad wadaan maanta. dagaalkii qoriga la qaadan jiray maaha, waa dagaal takhaatiirtu ay ku jiraan. ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay cabsilaan ahaan dagaal bay noogu jiraan, ee aanu siino space yeenan isbitaalada kusoo buuxin iyo booqasho waxyaabo noocaas oo kale ah. haddii aad takhtar meel ku aragtid ama kalkaalisa aad taqaanid, inta wacdid u mahadnaq, shaqo culus ay noo hayaan. Waxaan rabaa intaanan ka bixin inaan si gooni ah ugu mahad celiyo sidaad dhakhaatiirta aniga kolleegayga ah, guud ahaan bahda caafimaad, haddii ahaan lahaayeen nursing, haddii ahaan lahaayeen dhakhaatiir, oo saacadan la joogo Cabdisalaan oo u taagan inay wax u qabtaan bukaan xanuunsan, ha ahaado bukaankaas bukaan oo corona qaba, ha ahaado bukaan xanuuno kala qaba, xilligan u taagan emergency ku jira, xaalad adag ku shaqaynayo. waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran. ilaahay subxaana watacaala ajarkeena ma dayacayo. waan idin dhiirigelinayaa insha allahu tacaala. xanuunkaana iyo midda kalena waxaan rabaa inaan isla halkaana aan sidoo kale aan ugu duceeyo inuu ilaahay subxana watacaala caafimaad siiyo guud ahaan inta xanuunkan la ildaran, iyo gaar ahaanna waxaan rabaa inaan u duceeyo bahda caafimaad oo qaar fara badan oo ayagoo shacabka u adeegaya xanuunka hadda la jiifo. waxaan leeyahay ilaahay subxana watacaala ha idin caafiyo. ilaahay subxaana watacaala aniga iyo idinka iyo inta kaleo xanuunsan baan dambi dhaafa oga dhigo. aan niyadda dhisano, shacabkana waa shacabkeena, dadkaan u adeegeynana waa iyaga.
waa dadkeennii, waa hooyadeen, waa aabayaasheen, waa adeerayaasheen, waa walaalaheen. Aan niyadda dhisano, aan dadaalkii aan wadnayna aan halkan kasii laba jibaarno. boqolkiiba boqol waa kugu raacsanahay. ilaahay ha naxariisintii dhibateena. Dr. Nasiim, aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. barnaamijkeena intaas inoo ogyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.